distoorkan imika yaala markan run u sheego Soomaali waa kharaab waay ya haddii siduu yahay la sifayn waayana Soomaali wuu kala dirayaa mana dhamaystirin midna haddaan tilmaamku siiyo waxa la yiri laba guri waa Soomaali baarlamaankeegu leeyahay guriga maxay dadka iyo guriga sare ayaa la yiri guriga sare shaqadiisu kuma qorna distoorka bal haday wana la sameeyay haddana gurigi marka imika kuwa ku jira gurigaasi waa inay samaystaan waxay shaqadoodu tahay mandate-ku waxay tahay waade waxaan af Soomaaliga af Ingiriiska loo yiraahdo conflict of interest aniga ayaa abuuranaya waxay shaqadaydu tahay ee cid kale imay soo abuurin Soomaaliga marka waxa in hore loo diyaariyo ayay ahayd walaa marka kan waa distoor kharaab waaye in dib loogu noqdo waaye intaan afti la gaarsiin ma arki karayo markaas sanadka soo socda si inta distoorkii la nadiifiyo dabeedna afti dadkii loo diyaariyo ma ogeyn isaasi dhici karto wala dastuurkii federaalka ah ayaa hadda lagu mashquulsan yahay in la dhameystiro wasaaradda dastuurka iyo federaalka dawlad goboleedyada dalkuna dawlad kasta waxay leedahay dastuur iyada u gaar ah maxay marka arintaasi saameyn oo ay ku keeni kartaa dhameystirka dastuurkii federaalka ah oo waliba qabiye ah muddo badan oo waliba qabiye ah waxa weeye walaal dawlad goboleed waa fidmo goboleed waaye run marka Soomaali loo sheego fidmo goboleed waaye waxay doonaysaa dawlad goboleedkii inay la sinaato dawladii dhexe Soomaad garan marka horta dawladda dhexe distoorkiga waa in la dejiyaa kana lagu qeexaa maamul goboleedku hawshiisu waxay tahay ya imika ninba ka imaanaya gobol hebel Nairobi iska imaanaya dawladda Kenya arkaya iyadoo dawladda dhexe ogeey dawladda Kenya ogaan bay ula xaajoonaysaa Ethiopia saasa yeesha kuwa kalena saasa yeela waa si Soomaali loo khalid duuriyo oo ina weligeedu soo kicin waayo marka maamul waa loo baahan yahay inuu gobolku yeesho dadka u adeega markay noqoto tacliin hay noqoto markay noqoto shaqo abuur hay noqoto laakiinse wixii amuuraha dibadda ah wixii cadaaladda ah wixii gaashaandhigga ah wixii maaliyadda ah iyo waxa la caana maaloo dhan waxaasoo dhan waa inay dawladda dhexe noqotaa kuwa hoosena loo daayo dabeedna distoorka ay ku noqoto ku qeexan tahay xadka u kala dhaxeeya mesela haddaan tilmaamay ku siiyo xamar cidii garanaysaa garani xamar baad ka soo bixiyo afkooyi iyo baydhabo baad u socotaa inta badan gaadiidku ma socdo badii Soomaad garan oo de marka afkooyi soo gaadid cid kala xukunta meesha waa inaan kuwa madaxdii marka diyaarada raaca Soomaad garan waxa jirta meel la dhaho siinka dheer la dhaho ee jira xamar marka xamarun laga baxo waxa la yiri waa xadka u dhaxeeya banaadir iyo koonfur galbeed gaari baad wadataa gaari waxa lagu yiri marka xagga xamar joogtidna banaadir joogtidna waxa bixinaysaa cashuurtii jidka road tax ayaa bixinaysaa marka siinka dheer dhaaftay xaggi koonfur galbeed timaadidna waxa bixinaysaa cashuurtii mid la mid uu gobolkani leeyahay waa laba wadan oo kala gaar ah bal ka waran hadeen intan halkan marno gaari ka kaxaysano eldara tagano oo county kastaba cashuurtii kala hore lagaaga qaaday gaariga ama tii batroolka laga qaadayo isku dad manhin waaye marka waxaan waa wax qaraabe in umada laga sifeeyo oo cadaalad islaamnimo iyo Soomaalinimo ku dhisan la keenay ayaa loo baahan yahay way aad ba maasan